aanan u soo gudbin doono ilaahay subxaana wa tacaala siduu markhaatiga igaga yahay axad idinka mida inaanan sharafi wanaag oga doonaynin ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wejigiisii raalli ahaanshihiisa ayaan ku doonayaa. waxaan kaloo ku doonayaa ballanqaadkii ilaahay u ballanqaaday yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. adduunyada maanta waxaa socda ganacsi badan. adduunyada maanta waxaa socta kii qalinka ku shaqaysanayay, kii caqliga ku shaqaysanayay, kii qoriga ku shaqaysanayay, kii xoogga ku shaqaysanayay. mid walbaba wasiiladii uu wax u mari lahaa ayuu ku shaqaysanayaa, uu soo bandhiganayaa. laakiin walaalaha muslimiinta wax kastoo fawaa'id u ah nafsadooda oo aan u soo bandhigay ku saabsan shu-uuntani arrimahan ee xanuunada bini aadamka ku hayo, ilaahay wejigiisa ayaan kaga doonayaa. sida ciwaanka idinkaga muuqato, waxaa jira 3 saliidood. 3daasi saliida liquidka ah bini aadamka in badan oo ka mid ahi way garanayaan, laakiin xanuunada ay dawo u yihiin iyo kayfiyadda loo isticmaalayo iyo sida loo diyaarsanayo iyo qaababka lagala kulmayo waa adkeysigooda in badan oo ka mida aadamaha waa ay ka maqan yihiin. sida ciwaankan ku tilmaamay, iyadoo hordhac ahaana 3da saliidood u soo geliyey biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. waa 3 saliidood oo macruuf ah cinda annaas. dadka agtooda aad bay macruuf uga tahay, way garanayaan. laakiin xanuunada aan tilmaami doono ama maskixiyan ama madaxa qofka laga haya xanuunaya, ama qofka jismiga jirka laga haya xanuunaya, xanuunadaasi ay u roontaa markaa tilmaama qof walbaba isagii ayaan loogaga hormarayninba, durbadiiba inuu isticmaalo ay noqon karaysaa. saliidda ugu horeyso waa macruuf, qof walba wuu garanayaa. waa saliidan lagu magacaabo zaliid zaytuun. waxaa la yidhahdaa zaliid zaytuun ama zaliid zayd ayaa la yidhaahdaa. waa 1,000 ml ama miligram. waa 1 litar oo saliid zaytuun ah. waxaan doonayaa qaabkan u sharxaya ama u tilmaamayo inaysan walaalaha qaab ka duwan aysan u isticmaalin, siduusan dur iyo dhib hor leh oo xanuunkuu ka tabanaya yacni uga imaan kari lahaa. waxaa la yidhaahdaa zaliid zaytuun. wadamo badan ayaa soo saara, laakiin 3da wadan ee ku caanbaxay waxaa weeyaan wadanka Spain iyo wadanka Talyaaniga iyo wadanka Suuriya. axaadiistana si gaar waxay u tilmaamtay, aadna loo ammaanay, midda Syria laga soo sameeyey ama ka soo baxda. waa zaliid zaytuun oo 1 litar ah. waxaa kaloo bandhiga saliidda labaad ee daawada ay tahay macruufka qof walbana uu garanayo, zaliid xabatus baraka wa xabatu sawdaa. xabatu sawdada qof walba uu garanaya, liquidka iyo saliidda ah. midda kalena waxaa la yidhaahdaa, magaca labaad ay leedahay xabatulbaraka ayaa la yidhaahdaa. waa baraka socto oo nebi maxamed caleyhi asalaatu wasalaam uu tilmaamay. xabatu sawdada qof walban uu garanaya. midda 3aad oo qofku isticmaali karayo oo dawooyinka ka mid a xanuunadan tilmaami doono dawooyinku ah, waa saliidda iyadana lagu magacaabo saliidda qalinfurka. soomaalida siday u taqaano, saliidda qalinfurka oo laga sameeyo dhagayaraha. waxaa laga sameeyaa dhagayaraha, waxaana la yidhaha soomaali u taqaanaa qalinfur bay u taqaanaa. afka qalan waxaa la yidhaahdaa glove ayaa lagu yidhaahdaa. meel walbana waa laga helayaa, waana macruuf. iyaduna magacaas ayay wadataa ama ay leedahay. waxaan la yidhaahdaa saliidda laga sameeya dhagayaraha ama saliidda qalinfurka ayaa la yidhaahdaa. 3daas saliidood
oo la isku daray ama la isku dheehay imise xanuun bay daawo u yihiin maskaxiyan iyo jismiyan labadoodiiba. maskaxiyan iyo jismiyan labadoodiiba imise xanuun bay dawo uga tahay. waxaan tilmaamay saliid zaytuunka waxaa la doonaya inay ahaato 1 litar oo u dhiganta garaam ahaan 1,000 garaam. waxaa ku xigta xabad sawdada waa inay ahaataa markaad diyaarsanaysid oo xanuunada aan tilmaami doono dawey uga tahay tilmaamsan doonto, waa inaad diyaarsataa 60 ml ama 60 miligram 60 miligram oo midda liquidka ah ama dareertada ah. waxaa ku xigo midda saliidda qalinfurka ah ayaa ku xigta ama dhagayaraha laga sameeyey, iyaduna waxaa la doonayaa inay ahaato garaamkeedii 70 ml ama 70 miligram inay ahaataa la doonaya. saddexdaasi saliidood ayaa la isticmaalayaa habeenkii marka la seexanayo. madaxa iyo maskaxdana waa loo isticmaalayaa, jismigana waa loo isticmaalayaa. laakiin intaan isticmaalkii qaabka bilaabin, mowduuca qaabku u socon doonood u dhuuxi doonto waxa weeyaan, awalan saddexdaasi saliidood imise xanuun bay daawo uga tahay xagga maskaxda iyo xagga jismiga. fiirada labaad waxay noqon doontaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala sidee loo diyaarsadaa, qaabkoo qofka isagoo gurigiisa jooga markuu soo iibsado u diyaarsan karaya. nuqdada saddexaad waxay noqon doontaa qaabka saddexaad, sideebaa loo isticmaalaa, doos intee laga qaadan karaya jismiga iyo madaxa. nuqdada yani shanaad waxay noqon doontaa calaamadaha qofka uu la kulmi doono markii uu isticmaalo. awalan saddexdan saliidood waa saliid zaytuun iyo saliidda xabad sawdada ama xabatulbaraka iyo saliidda qalinfurka soomaalida sida u taqaano, ama saliidda dhagayaraha la shiiday oo la diyaariyey laga sameeyey. awalan haddaan ku horma xanuunada ay dawada uga tahay markuu qofka diyaarsado uu samaysto ay dawada uga tahay, waxaan ku hormarayaa madaxa iyo maskaxiyin. maskaxda iyo madaxa intee bay xanuuno qofka uu dareemayo ayay dawo uga tahay. waxaan u tegi doonaa kadib jismigii jirka calaamadaha xanuunadaasi qofka isku arkayo inay dawo uga tahay, isagana gacantiisuu ku samaysan kara iskuna daweyn karayo. awalan saliidda qofka markuu diyaarsado waxay dawo uga tahay madax xanuun oo idil qaabku ku yimaado oo jismiga madaxa ku yimaada. madax xanuun dhammaantiisa oo madaxa bini aadamka ku yimaado guud ahaan ayay waxay u tahay dawo. qodobka labaad, madaxa oo qofka bini aadamka oo ka xanuuna labada maash ama labada xis, dhinacyada tan qofkay digaamayaan oo ay garaacmayaan, xididadiisu taagan yihiin, inta badan xanuunka labada maash ku yimaado dawo ayay uga tahay. qodobka saddexaad waxaa weeyaanay dawo uga tahay madaxa xaggiisa, qofka oo madaxa daa'iman ka xanuunaya oo ka garaacmayo ka dhibaatoonaya xagga kugta sare ama dhankan sare. qofka haddii goor madaxa qaybtan sare maskaxda kore aad u xanuunaysa, xanuunkasna dawo bay uga tahay. waxay kaloo dawo uga tahay dadka inta badan ku dhacda indhamadoobaadka. qofka siduu u socdo ayuu indhamadoobaana, indhaha buu qabsanaa sidii qof enemiye ku dhacday ama dhiiggi uu ku yaryahay ayuu indhaha qabsanaya. taana waxay uga tahay hadduu isticmaalo dawadan isku darsada sidii qaabkan u tilmaamay, dawo indhamadoobaadkaas ama indhaha mar walba madoobaanayo wax arkayno fadhiisanayo qofku in badanoo ka mid a dawo bay uga tahay. qodobka shanaad waxaa weeyaan qofka uu ku badan yahay wareerka madaxa. waxyar markuu joogaba dhulkii ayaa la guuraya,
maskaxda ayaa gadoomayso waa wareeraya ilaa meel uu qabsado ama uu fadhiisto madaxa wareerka badan ku yimaada dawo bay uga tahay. waxaa kaloo dawo uga tahay madaxa sida soomaalida u taqaano qofka goonjabka badan ama goonjabka ku dhaca. goonjab waxaa la yidhahdaa qayb ka mida madaxa inuu ku xanuuna, sida hadda jeexa madaxa intaan qaybtan oo kale qofka mar walba iska xanuunay, qaybtan way u fayowdahay, qaybtan baa xanuun ku haysa. goonjab baa la yidhaahdaa qaybta madaxa dhinaca bidix ama midiga qofka daa'iman xanuunayso mar walbana kusoo kacaysayo dawo bay uga tahay. waxay kaloo dawo uga tahay muslimiinta in badanoo ka mid ay raadinayaan dadka hurdada ka zuusho, dadka hurdada ay ka zuusho oo hurdadu sariirtu hadday tagtaa iska galgalanaya oo ku dhibaatoonaya, xataa qaarkooda hadday kiniiniyada daroogada lagu seexday isticmaalaanba aysan inaba gam'aynin. iyaduna waxay uga tahay dawo hurdo la-aanta aadka u tirada badan ama qofka hurdadu ku yar tahay. waxay kaloo dawo uga tahay xagga madaxa qofka leh madax guurguurka, xanuunka madax guurguurka oo hadba xanuunka madaxa dhinacan buu harka qabanaya, waxyar kadib haddana madax uu guuraya dhinac kale laga qabanaya, misna waxyar kale uu sii guuraya dhinac kale laga qabanaya. xanuunka ee duurka ee madaxa sida ugu wareegayana dawo bay uga tahay saliidan saddexda laysku daro qaabka loo isticmaalayo. waxay kaloo dawo uga tahay xanuunka madaxa siyaadada ah aan khayru caadiga ahayn, ilaa qofka uu ku taamo ama qofku uu markaasi waxaa weeyaan uu ku fakaro inuu madaxii dhanba xiiro, hadday tumar tahay hadduu rag yahayna inuu madaxii oo dhan xiiro uu jaro ilaa uu qofka ku taamo uu ku warwaro. taa dadka hadda khaasatan aad bay uga soo badatay xagga dumarka. waxaad arkaysaa dumarku soo wacayoo leh madaxii tintii shalladii way geli kari weysay oo lama shallaysan karayo, haddaan shalleeyo madaxii dhan wuu isla kacaya, wuu xanuunaya. qaarkoodi waxay leeyihiin tintiiba way isku dhagaysaayo ma ay kala fuqayso mana kala dhaqaaqayso in la xiiro mooyaane. kuwa qaarkoodii xanuunka madaxa uu ku haya awgeedii baa qalbigoodu wuxuu uga suuraysmayaa in haddii tintu ay xiiraan ama iska jaraan madaxu nafis uu yeelanayo. tintani madaxaan aad arkaysaan waa sidii geedku markuu yar yahay uu soo ifbaxayo soo weynaanayo, haddaanan maalin ama maalin dhaaf loogu shubin biyo jiridda hoose geedka wuu qalalayaa, mana kobcayo, wuuna baaba'aya oo burburaya. tinta bini aadamka waa sidaasoo kale, hadday weyse quud iyo wax ay kor ka qaadatayo in badanoo ka mida xanuuno iyo calaamadii astaamo tiro badan bay la imaanaysaa. marka dadka inta badan ka cabanaya dumarka ha u badnaadee tintu isku dhegtay kala fujin kari waayaan, ama kule haddaanu shallada sidaa u gelina xanuunkuu ku siyaadayaa, iyaduna daawo way uga tahay. xanuunka ugu dambeeye madaxa daawada uga tahay waxaa weeyaan 10aad qofka xanuunaysa fiiska, meel kale ma xanuunaysa fiiska, intaan labada indhood u dhexaysa halkan wareega ilaa intaani buu moodaa hadduu rukuucaba inay soo dhacaysa, hadduu foorarsada ayaa madaxii oo dhan inuu soo guurayo soo dhacaya xanuun darteedii. qofka foosha halkani xanuunkaasi zaa'id ugu qabanayana dawo bay uga tahay saliidan saddexda laysku darsanayo. halkaasi waa dhinaca madaxa xanuunka iyo in badan oo ka badan ziyaada ah. ama xagga jismigu ama jirku saddexdaa saliidoodoo laysku darayo maxay kaga tahay dawo? awalan qofka jismigu ama jirku cajsiga uu kaga badan yahay, wuu iska dhibaya, naftu buu kalifayaa, isagii waa xoog iyo waa isku wadayaa buu ku leeyahay, laakiin jismiyan qofka cajsi aan caadi ahayn baa ka saaran. cajsiga tirada badan oo qofka jismiga ka dareemayo haba la socda isaguna wuxuu uga yahay dawo ayuu ugu yahay hadduu isticmaalo qaabkan u tilmaami doono. qaybta labaad oo jismiga dawo uga yahay waxaa ka mid a xubnaha joyntiyada oo qofka xanuuna.
jointi waxaa la yidhahdaa meelaha xubnaha ay ka kala go-aan, sida halkaas, sida xusulka, sida garabka, meelaha jismiga bini-aadamka jointiska ee laablaabmaya qofkay mar walba garaacmayaan oo dikaamayaan ama ay xanuunayaanna saliidan haddii uu marsadu laasima habeen walbaayo dawo bay uga tahay. waxay kaloo dawo uga tahay qofka insaanka ah oo qaba lafagaraaca gudaha ka dareemayo, dhuux shubanka ama lafagaraaca oo jismiga gudaha uu ka dareemayo inuu dhuux shubmayo ama uu lafa garaacmayo xagga gudaha lafaha uu ka garaacmayo, xanuunitaah uu ka hayo, sida la leeyahay dadka calciumkiibaa ka maqan, lafaha hoose ayaa xanuunayo garaacmaya, iyaduna dawo bay uga tahay. qodobka afraad waxa weeyaan jirka oo yeesha nabra madmadow. jirka insaanka oo yeesha nabra madmadow aad moodo dhullaaxado oo kale oo habba meel ka soo baxaya madoobaanaya, dawo bay uga tahay qofkaasi hadduu isticmaalo saliidahan dawadan u tilmaami doono. waxay kaloo dawo uga tahay oo tijaaribta lagu qaada ilaahay ku guuleeyey ka mid ah qofka jirka caarooda, qofka jirkiisu caaroonayo, mar walba wuu caaroonayaa, shay yarba sensitive buu ku yahay, wuu ku caaroonayaa, iyaduna dawo bay uga tahay. qodobka lixaad ee jismiga ama jirka dawo uga tahay waxaa ka mid a qofka oo mar walba jirkiisu barar ku jira, isagoon lugayn, isagoo socon, isagoo culaab qaadin, oo mar walba jirkiisu bararka uu ku jiro, una dareemaya jismiga qeybaha sare inay ku jiraan bararkuna, isaguna waxa uu ugu yahay dawo ayuu uga yahay. qodobka toddobaad waxa weeyaan qofka insaanka oo jirkiisu yeesha caaradiibay oppositekeeda ama cagsigeedii tahay dheerdheerada wax lagu magacaabo, inkastoo isha bini-aadamka loo nisbeeyo, laakiin dawo bay uga tahay. dadka mar walbaba xagtiimo inay ku yaalaan jirkoodii moodaya, ama mar walba xagtiimo dheer oo yacni sida barar ku jira oo kaloo dhirir ah jirkooda yeelanayana asalka dawo bay uga tahay. waxay kaloo dawo uga tahay saddexdaas saliidood qaabka loo isticmaalayo. qodobka sideedaad ee jismiga ama jirka, qofka uu ku badan yahay jiro cuncunka, jirkiisao mar walba cuncunaya. caaradu waa macno gooni, dheerdheeradana waa macno gooni, cuncunkana waa macno gooni. cuncunka qofka aad moodayso inuu qabo isnidaamis oo mar walba jirka xuqayo ku foofayo, cuncunka siyaadadana qofka waxay uga tahay dawo. waxay kaloo dawo uga tahay yacni saliidahan marka la isticmaalayo qofka oo hadduu shaqeeya iyo hadduusan shaqayninba jismigiisa daal aan khayru caadi ahayn ka muuqdo. mathalan wuxuu ku leeyahay xalay oo dhan waan jiifay, aroortii markaan soo toosay meesha la doonayay inaan fareesh noqdayo fareeshba noqon maayo, oo jirkaygu dhan waa daalan yahay, qof daalan oo xalay dhan socday oo kale aan baahay ama shaqaynayay. daalka jirka qofka isagoo nastay xataa sida uu dareemayana dawo bay uga tahay. qodobka tobanaad waxaa weeyaan qofka ay ku badan tahay jirkiisa dubaaxintu iyo dhaqaaqa jirkiisa uu ku badan yahay. nacam, qofka markaasi uu ku badan yahay jismigiisu dubaaxintu uu ku badan yahay oo haddii goor dubaaxinaya, dubaaxintuna ay aad u fara badan tahay, mar walba jirkiisa qeybo ka mid a ay dubaaxinayso, iyaduna dawo bay uga tahay. qodobka 11aad ee ugu dambeeyay jirku ay iyaduna u tahay dawo waxaa ka mid a jirka oo huraya ama kuleel daran kasoo burqanayo kasoo baxaya, xilli habeenkii uu jiifa ha noqoto ama xilli maalinkii uu jooga ha noqoto, yacni jirka aadka u kuleelka uga soo baxaya aadka u daran, iyaduna waxay uga tahay dawo. madaxa xanuunada soo maraya dawada uga tahay iyo jismiga dawada uga tahay waa isku macaani iyo isku qaab weeyaan. waa 3 dawo. intaasi calaamadoodaan soo tilmaamay ama madaxa ama jirka ayay dawo uga tahay. mar labaad baan ku celinayaa tusaale ahaan qofka inaysan ka dhumin. waa litar zali zaytuna, 1 litar oo zali zaytuna oo u dhiganta yacni 1000 yacni miligram ama 1000
ml ayay u dhigantaa oo 1 litar baa la doonaya. waxaad sameynay markaasi waxaad soo diyaarsanaysaa digsi baa soo diyaarsanaysaa. waa qaybteeni labaad aanu ku tilmaami doono sidee loo diyaarsadaa dawadaasi, sidee loo diyaarsadaa, qofku nafsadiisa ugu diyaarsadaa. waxaa soo iibsanaysaa 1 litar oo saliid zaytuun ah oo 1000